iyo cilmi badan baa inoogu jiray dhageysta buu yidhi. فرنسية مسلمة مثقفة ثقافة عالية زوجها داعي إلى الله. gabadha waa gabadh faransiyada oo muslimada oo aqoon leh oo jaamacadahan cilmi almaadiga taqaano wax baratay ninkeeguna waa nin daaciyo dacwada ka shaqeeya. والديها غير مسلمين. laakiin labadeeda waalidiyada muslimiin ma waa gaalo iyadoo ma muslimada. أول جماعة خرجت 40 يوم من فرنسا إلى باكستان. waxay gabadha ku jirtay jaamacadii horeysay ee France ka baxday ilaa iyo Pakistan 40 cisho. كل النساء يقولون ما رأينا مثل مرأة مثلها. dumarka oo dhan waxay yiraahdaan gabadhaas gabadh lamid weligay ma nu arkin. ما عندها دقيقة من حياتها تضيعها فيما لا يعني إلا إما دعوة إما تعليما إما تعلما إما ذكرا. حتى النساء إذا كانوا تكلموا في الدنيا وفي قال وقال هي أما تغير كلامهن بالدعوة ولا تقوم لا تجلس معهن. waxay yiraahdaan gabadha waxa laga arkay sifada cajiibka laga arkay waxa kamid ah daqiiqad waqtigeega kamid ah ma la yaani kuma dayacdo ama way cibaadaysanaysaa ama quraan bay akhriyaysaa ama salaad bay tukanaysaa ama waxbarasho ku jirta ama dacwad bay ku jirta xataa dumarka kale oo wax kale laga sheekeynay haday aragto intay la fadhiisato ay hadalkooga bedelaysayo kalaam diin wali ma bay u bedelaysaa. رجعت من 40 يوم في بيتها مثل المسجد. جعلت مصلى 3 بنات وولدين كل يوم حلقة التعليم في البيت. حتى أولادها وبناتها يعني تربوا على حب الله وحب الرسول. شيء عجبا عجابا. wuxuu afartanki markay ka soo noqotay gurigeyga waxay ku camirtay acmaal bal gurigeyga waxay ka dhigtay sida masaajidka oo kale 3 hablood iyo 2 wiil bay lahayd awqaadii guriga oo dhan waxay ka dhigtay imma salaad imma quraan imma dacwad imma tacliim 24 saac gurigeyga wuxuu noqday guri ku camiran acmaashi nabigeena alayhi salaatu wasalaam. عندها قيام الليل في الليل بين يدي خالق الكائنات تناجي رب العالمين. زوجها يقول أن تقوم تصلي الليل ثم كذلك صباحا تكمل أذكارها مساء قبل النوم تكمل أذكارها دائما مشغولة بطاعة الرحمن. اسمعوا يا إخواني وأخواتي مثال عظيم في هذه المرأة. wuxuu gabadhaasi habeenkiina salaatu leylka ma dhaafi jirin ba saacadaha dambe bay kici jirtay quraankeyga dikrigeyga adkaarteeda istighfaarteeda salaada subaxinta la gaarin bay dhamaystiri jirtay. wuxuu gabadhaasi waa gabadh nolosheedo dhan ku camirtay ilaahay taacadiisa qisad baan niga sheegay dhageysta buu yiri. قبل 5 سنوات بالاختصار قبل 5 سنوات أصابها مرض الكونسر كونسر السرطان عافانا وعافاكم الله. 5 sano ka hor gabadha xanuunka waxa ku dhacay leedahay kansar ayaa ku dhacay jirkeega sarataan. فالأطباء قالوا خطير انتشر في جسمها. dhakhtaradii waxay yiraahdeen xanuunkan jirkeegii buu ku fiday gabadha waa khatar hadii toole. اسمعوا نادت زوجها قالت يا زوجي قبل أن يأتي الموت نريد نكمل ديني نريد نكمل ديني يا زوجي أريد نكمل ديني يا زوجي. ماذا أنت ما عندك دين كامل؟ قالت له لا ما زال موسم الحج حجي ما حجيت لكي نكمل ديني 5 فرائض 5 ركائز الإسلام. أنا ما حجيت يا زوجي. كيف نموت ونلقى الله بغير حج؟ يا زوجي اعمل معروف خذني إلى بيت الله الحرام. waxay ku tiri markaa ninkeegii waxaan doonayaa intaanan dhiman ajashu aynan iiman inaan diintayda aan dhamaystirto diin kaamil anigoo le inaan adduunyada ka tago laana arkaan alislaamka xajka kamida waxay tahay anigu wali ma xajin muusimkii xajkana waa la gaaray waxaan doonayaa oo niyeysanahay inaan ilaahay gurigiisa tago soo xajiye xajki noo qaba qaabay bay ka tiri markaas. قال يا زوجتي انت مريضة لا تستطيع تتحركي خطير. قالت له يا زوجي الله سيقويني لكي نؤدي موسم الحج. يا زوجي خذني ولا تخاف. markaasuu ku yidhi nawaad bugta adigu oo xanuunka jirkaagiiba ku fiday ma kici karaysid xajkuna qof caafimaad fiican oo caafimaad ku dhan yahaa ku fiican markaabay tiri ilaahay uu karaa inuu quwad aan ku xajiyay siiye adigu ma aragtaana kaco hawsha xajka ii bilaab ilaahay baa xajka geeniyo xaji siinaye. ذهب زوجها إلى السفارة السعودية. جاء الخبر من المملكة السعودية أن قفل الحج ما بقى يعطوا تأشيرة واحدة مهما كان الشخص لابد. خلاص جاء الخبر من الحكومة نقفل موسم الحج. safaaradii buu tagay baasaboorkeygii iyo kiisii intuu qaaday safaaradii markuu tagay waxaa lagu yidhi xajki waa la joojiyay khalaas fiisihii xajku waa dhammaaday tiradiina way buuxsantay amarkaasina wuxuu ka yimid boqortooyada waa la qufulo arrintaas way dhammaataa laga yidhi. فرجع أخبرها. اسمعوا إخواني وأخواتي. فلما أخبرها قالت له أن عندي خالق الكائنات عندي مالك الملوك الذي بيده كل شيء. قامت صلت ركعات وقالت يا ربي أنت الفعال لما تريد كل شيء بيدك أنا عندي يقين عليك اللهم سهل لي التأشيرة يا رب العالمين. ما كملت الدعاء إلا من غد جاء الخبر من ملك السعودية قال للسفارة نريد بعض الضيوف يأتون ضيوف عند الملك الدنيا يأتوا يعني تأشيرة من باب خاص طائرة خاصة مسكن خاص في مكة في المدينة مسكن خاص كل شيء خاص. وجاء زوجها وهي في القائمة متاع الجماعة ماشيين ضيوف الملك.
waxuu ku tiri ninkeegii ilaahay waa qaad markuu yidhi waa la xidhay oo baasaboorkii waan geeyey oo xashkii u dhammaaday ayay tihi maybe salaad intay tukatay ba ilaahay baraday tiri ilaahayow aduu awood waxaad leedahay mutlaqa inaad xashka geyso iyaku wax ma hayaan adigaa facaala amarka adigaa iskale sanadkan waa niyooda xashka inaad tegee ilaahaw xashka igee bay tiri igee gurigaaga ilaahu gee albaabkaaga ayaa furane albaabkii ilaahay bay garaacday deedna amar baa ka yimid xaggii boqortooyada maaragtaan sacuudiga oo la leeyahay waa intaasoo dad ayaa boqorku diyaafad martigelin u sameeyey fiisaha soo siiya diyaarad khaasaa lagu qaadi xashkana meel khaasay leeyihiin muwaasalaad iyo baabuurro khaasay leeyihiin soo qaada gabadhi iyo ninkeegiiba liiskii dadkii markaa diyaafadda boqorka ku jiray ee martiqaadka boqorka ka helay ayay magaceegii iyo magacii ninkeeguba ku soo baxay توجهت إلى مالك الملوك فالله سخر ملك الدنيا فأعطاها كل شيء بالسهولة boqorka boqorada ee adduunyada iskale ayay ilaahay taladii isaga u dhiibatoy ilaahay bay bariday ilaahay caza wajal wuxuu soo saqiray boqorkii sacuudiga deedna magaceegii qaa'imadii wuxuu ku jiray maaragtaana dadkii la xajisiinayay اسمعوا إخواني